labadii kun iyo 16 waxaan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada doorashada ee heer federaal ee FID loo odhan jiray. haddana waxaan ka mid ahay magacaygu waa Dr. Farduus Maxamed Ducaale. waxaan ku dhashay gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka Gabiley. halkaasaan dugsi quraankii ka bilaabay kabacdi haddana waxaa u soo nimadnay markii waqooyi laga soo qaxay xamar. halkaan aan ka bilaabay haddana 29kii dib baan u noqonay. halkaasaan Hargeysaan ka bilaabay waxbarashadii dugsiga hoose dhexe dugsi dawladdu leedahay oo la yiraahdo Axmed Dhagax. dugsiga dhexe halkaasaan kaga baxay. dugsiga sarena waxaan ka baxay isla Hargeysa dugsi ilaa secondary school la yiraahdo. halkaasaan jaamacadii ka galay Girls University. kabacdi markaan jaamacadii halka aan wado waxaan ka shaqo bilaabay isbitaal la yiraahdo bukaan kalkaal hospital oo Hargeysa ku yaala. kabacdi waxaan shaqo ka bilaabay isbitaalka weyn oo Hargeysa oo aan dhowr department ka soo shaqeeyay. emergency-ga aan ka shaqeeyay female medical department aan ka soo shaqeeyay iyo obsangeen xanuunada dumarka. kabacdi waxaan soo wareegay 2014kii xamar. waxaan ka soo shaqeeyay isbitaal Daynile. waxaan ka shaqeeyay isbitaal Banaadir. waxaan ka soo shaqeeyay isbitaal Keydsanay. 2016 waxaan ka mid ahaa guddigii qabanqaabada doorashada ee heer federaal ee FID loo odhan jiray. haddana waxaan ka mid ahay waxaan kaloo ka soo shaqeeyay gobolka Banaadir waaxda caafimaadka. haddana waxaan ka mid ahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka shaqeeya Banaadir. waxaan ahay hooyo